iska fadhiya. kani waa Sheekh Mustafe waxa uu ka mid yahay culimada caanka ka ah geyga Soomaalida. aad waxaa loo dhageystaa khudbadihiisa la xiriira xagga diinta. waa sheekh ku tacalluqa isla markaana aad u garanaya xagga diinta iyo sidoo kale maadiga. waxa uu badi gubaabiyaa dhalinyarada, waxa uu ka wacyigeliyaa xaaladaha ay imika ku guda jiraan. sheekhan waxa uu ka mid yahay culimada sida weyn loogu xushmeeyo gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale meelaha ka baxsan intaba Soomaalida. laakiin saarin la yaab leh oo dad badan ay ka naxeen ayaa ka dhacday gudaha masjid ku yaala mid ka mid ah wadamada reer Yurub. xilli sheekha muxaadaro u jeedinaya boqolaal qofood ayaa mar qura muxaadarada waxaa dul istaagay wiil dhalinyaro ah oo masaajidka dadkii xilligaas ku sugnaa ka mid ahaa. waxa uu la soo booday su'aal ayaan ku weydiinayaa sheekhow. inkastoo xilligaas muxaadarada ay socotay oo su'aal aysan furnayn, waxaa sheekhu uu ku yiri bal waayahay fariiso waad i weydiinaysaa. laakiinse wiilka ayaa durba bilaaba aflagaado iyo sidoo kale caayo uu kula kacayay Sheekh Mustafe, waxaana arrintaas ka carooday dad badan. kaba sii dana sheekha dhanka uu fadhiyay oo muxaadarada uu ka jeedinaya ayuu wiilkan u baxbaxsanayay, taasoo u muuqanaysay inuu doonayay inuu u gacan qaado sheekha. laakiinse boqolaalkii qofood ee masjidka xilligaas ku sugnaa ayaa tilaabo ka qaaday ninkan, waxaana ay u saareen bannaanka. ninkan ayaa durba bilaabay inuu aflagaadeeyo sheekha. muuqaal la soo duuba ayaana muujinaya sheekha oo si degan dadka u dhahaya bal fariista aan dib ugu laabana cashiradeenna muxaadarada. taasna waxay dadku tustay in sheekhu ahaa ruux sabar badan, isla markaana aan ka jawaab celin hadallada xanafta leh ee kasoo yeeraya wiilka dhalinyarada. waxaana sheekha uu sii ambaqaaday khudbadii ama muxaadaradii halkaas uu ka jeedinayay. dhacdadan ayaa dhaawacday qulubta dad badan oo jecel Sheekh Mustafe, isla markaana waxay ka xumaadeen gefka sheekha uu kula kacay wiilkan dhalinyarada ahaa. wiilka dhalinyarada dadka badi waxay ku tilmaamayeen ruux xanuunsan oo maskaxdiisa ama caafimaadkiisa taam uusan ahayn, sidaa daraaddeedna ay keentay inuu u gafo sheekha. Sheekh Mustafe ayaa si degan khudbadiisa ama muxaadaradiisa u sii watay, isagoo wax dhibaan u arkin hadallada ka soo yeeraya wiilka dhalinyarada ahaa. dadkii masaajidka joogay ayaa aad kaga carooday tilaabada wiilka, waxaana ay u arkayeen inuu yahay shakhsi xun oo aan wanaagsanayn. mar waliba culimadeenna waxay naga mudan yihiin xishmad iyo sidoo kale qadarin badan. fadlan qaybta commentiga ku soo qor Allah xafido Sheekh Mustafe.